وفد بلادون oo horkacayaan wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane Maxamuud Xaashi iyo wasiirka wasaaradda dibadejinta Cali Saciid Reegal ayaa lagu soo dhaweeyay madasha shirka afgarad iyo ayatal isteed dooxada Dagaar. Wafdidan ayaa waxa halkaas ku qaabilay boqorro salaadiin wax garad siyaasiyiin haween iyo dhalinyaro aad u tiro badan. ugu horreeyna waxa halkaas kelmado soo dhaweynaya ka soo jeediyay salaadiinta wafdidan soo dhaweynayay. halkan wax la yiraahdaa Dagaar halkii ciidayoon gogoshii aanu dhignay dabadeed wasiir waxa weeye hadiyo waftigaaga sharafta leh waxaanu idinku soo dhaweeynaa caleemo qoyan soo dhawaada gurigan waa gurigaagii ku soo dhawoodiyo waftigaaga gabagabadiina waxaa halkaa kelmado mahadcelin ka soo jeediyay wasiirka dibadejinta oo ku hadlayay afka wafdidan. aad iyo aad u mahadsantiin soo dhaweyntan ballaaran ee aad noo samayseen ee aad muddada dheer halkan u taagnaydeen ee aadna sugayseen aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. waxa maanta noo farxada oo farxad ballaaran noo ah inaanu maanta joogno dhulkii Soomaaliland ugu quruxda badnaa xoolaha daaqsinka hadday tahay fardaha qoob yarta hadday tahay ragga garta iyo xeerbeegtiga iyo aftahanka hadday tahay ragga akhlaaqda iyo asluubta hadday tahay dhaqanka soo jireenta ah ee Soomaaliland dhulku ka soo jeedo hadday tahay iyo waliba madarka iyo roobka inahaya dhammaanba maanta farxad ballaaran ayay noo tahay. aad iyo aadna waan idinku mahadcelinaynaa. annaguna waxaanu u soconnay shirkan afgarad ayo ka talis ee ay qabsatay beesha biciida yoonis inaanu idinkala soo qayb galno xidhitaankiisa idinla faraxno idinla dabaaldegno talooyinka wanaagsan iyo warmurtiyeedka quruxda badan ee wax ku oolka ah ee Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland iyo bulshooyinka deegaanka ku nool iyo bulshooyinka Soomaaliland baa ugu fadhiya inaanu idinkala soo qayb galno. waxa maanta waxa cusub oo taariikhda galay waa laba qodob. koow meesha la yiraahdo Dagaar maanta meel kasta waxa ku jirta war Dagaar xagee ku taala caalamka oo dhan bay Dagaar gashay waa guul weeye intoo xadii Dagaareedna maanta ay noqotay meel caalamka oo dhan isweydiinay war Dagaar meesha waa arkay. ومختار محمد ديريه مختار جنبق ورباهنت السناك تيميس dooxada Dagaar.